hay-adda dhinaca samafalka ee Raxma Al-Khayriya oo iyadu ah mid inta badan ka shaqaysa sidii ay gargaar iyo taakula u gaarsiin lahayd dadka jilicdasan ayaa in ka badan 200 oo qoys oo ku nool deegaanada xeebta waqooyiga Soomaaliland ee dhawaan ay ku dhufatay musiibada duufaantii Sagar taasi oo inta badan dadkan ka dhigtay hoy la'aan isla markaasina ka leysay xoolihii noolaa ay dhaqanayeen. waxa ay hay-adda Raxma Al-Khayriya gaarsiisay deeq isugu jirta timir, dhar ciideed, bacaha guryaha, cawaha lagu seexdo iyo weelka lagu shubo biyaha kuwaasi oo waqtigan lagu jiro dabayaaqada bishii barakaysneed ee Ramadaan loona diyaar garoobayo munaasabada ciida barakaysan ee Ciidul Fidriga kuwaasi oo dadkani ay si aad ugu baahnaayeen deeqdan hay-addu gaarsiisay. waxaana ugu horeyn madashii lagu bixinayay deeqdani ka hadlay xubno ka mid ah guddida wanaag farista iyo xumaan reebidda Soomaaliland. ugu horeyn walaalayaal Ilaahay baan subxaanahu wa ta'aala u mahadnaqaynaa. Ilaahay naga dhigay dad isku naxariista dhibka iyo culayska ku yimaadana qaybsada taasaanu Rabbi subxaanahu wa ta'aala inagu gargaaraya. Ilaahay mahadnaqiisa kadib waxaan u mahadnaqayaa jamciyadda Raxma Sheekh Cabdalle oo inta badan waxa weeyaan dhibaatada la qaybsada ummadda gurmadna gala marka hawlu timaado. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala juhdiga ku jiro Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu ku barakeeyo Ilaahayna miisaanka xasanaadka ugu daro ayaan uga bariyaa. waxa kale oo aad ugu mahadnaqayaa dadkeena walaalaha khayrka jecel ee wanaagga isla jecel ee dhibaatada qaybsada ee gartay walaalahood wixii ay awoodaan ay soo gaarsiiyaan halka maanta baharshoonka cadeeda kulul wallahi dareen weyn dumarka taagan markaad aragto iyo waxa weeyaan ragaasi dhibaatada haysata culayska haysta qaxoontiba ku soo dhacay xoolahoodii wax ka mid oo badan budaad ku qaaday wax guri sheegtaana uma harin weelka ugu yar yahay. geestiisa isaguna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay-adda Raxma Al-Khayriya ee iyadu taakuladan gaarsiisay dadka jilicdasan Sheekh Cabdalle Maxamed Ibrahim waxaanu ka hadlay deeqdan iyo sida ay uga faa'iideysanayaan dadkan ay soo gaarsiiyeen. koleysa oo aragtaan halka waxaan ugu qaybinaa timirtii iyo wixii hadhkii oo cawdiya bacdi oo iyaduna cawda gogoshiya bacdi oo hadii la idma hadhkiya maacuunkii hadii la idmaayo dharkii la xidhanayay waxyaalo fara badan baan soo qaadnay waxaanu aragnay maalin dhawto halkaan maray anigu aan ku maray oo arkay dhibaatada haystay xanuunka haystaan arkay oo dadkani ma haystaan hoy ma haystaan dharna ma haystaan weel ma haystaan cuntooyin wala soo gaarsiiyay laakiin waxa la wax gacanta ku hayaan ma jiro cadceedaasi taagan yihiin oo imka arkayso xaraarada halka ay marayso aad arkayso moogtay marka kulli halkan anagu waxaan intaasan ku qaybinay waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadkii ka soo qacan dumarkii reer Hargeysa Ilaahay khayraasiyo xaafad walba lahaa haday xagga idaacada tahay yada jigjigar tahay yada ganna tahay dumarkii aad uga soo qayb qaatay Ilaahay khayraasiyo oo waliba shirkadada arkaysaan albaraka bakery khayr la siiye ay haday la idmaayo intooda badan ay keentay haday la idmaayo muxuu warshada furunka ay keentay bahalada loo baahan yahay biyaha haddii la idmaayo lagu dhaansanayo ee halka maanta weeyar shirkadda halka yaala intooda badan ay keentay dadka waan ka soo wada ururinay waxaan leenahay dadkiina soo gaadha dadkiina dhibaatada ay ku nool yihiin iyo xaaladda ay ku jiraan iyo duruufta haysa hala la qaybsado dadkeena waa in la qaybsaneen u baahanahay oo in haddii la idmaayo qof waliba waxaad keeni karta aad keento way dadkan hadba u baahan yihiin guri ay galaan bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin wax nafaqo leh u baahan yihiin aanay u baahan haddii la shaah bigas ku cabaan xaalad adag bay ku jiraan dadkani marka haddii la idmo waxaan doonayaa ugu mahadnaqayaa dadkii walaaladeena haddii la hawshan ka soo geysay ayaan aad ugu mahadnaqaa jazaakumullahu khayran waxaan leeyahay soo kordhiya oo wada oo haddii la idmaayo yu istaagin haddii la mucaawino walaalkiina u caawinaysa walaaladin waayo maanta anagu halkan u baan cabdigeedu maanta nimid oo dadkan hadiyad ka soo qaxay laakiin dadku way fara badan yihiin meel fara badan baa la degan yahay dad dalku u balaaran yahay waxaan leeyahay gurma degdeg oo fara badan balaaran dadka in laga dhex bixin baan jecelahay baaqasan u jeedinaya. ugu dambeyntii iyaguna waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadka iyagu ka faa'iideystay deeqdan waxaana ka mid ahaa hadalladoodii oo beeshii hadayta ka soo qaxday duufaankii dadku halkii aan fadhinay naga soo kiciyay dabadeedna halka bacadka iyo boociga imka aan ku soo dhacnay waan ka gudoonay deeqdii ay noo sideen ururka albaraka alramxa waana ka gudoonay wayna mahadsan yihiin waxaan leenahay deeqda ay noo sideen waan ka gudoonay